أحمد علي عيقة وكمدة صحافة سوماليلاند ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu u taagan yahay jagada gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier shirweynaha soo socda waxaana uu ugu baaqay warbaahinta Soomaaliland in ay jagadaasi u doortaan Axmed Cali Cige oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu yiri Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigoo Axmed Cali Cige oo saxaafadda Soomaaliland ku soo jiray 15 sanadood ee u dambeeyay heerkooyinka waxbarashaduna ay gaarsiisan tahay heer jaamacadeed kana soo shaqeeyay warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland gaar ahaan xaruntii Hatuf Media Network oo aan ka soo shaqeeyay sanadihii 2008 ilaa 2014 oo aan ka soo noqday tafatiraha guud ee wargeyska Hatuf sida oo kale waxaan ka soo shaqeeyay wargeyska Sahan 2015 halka telefishinada Bulsha TV iyo Home Cable TV aan ka soo shaqeeyay 2018 ilaa 2021 way aragnimada saxaafadeed darteed oo ay og tahay saxaafadda Soomaaliland ayaan doonayaa maanta inaan ku dhawaaqo in aan ahay inaan u tartamayo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier dhammaan saxaafadda Soomaalilandna aan ka codsanayo in ay arintaasi ugu garab istaagaan oo ay ii doortaan haddii alla yiraahdo waxaan doonayaa inaan wax ka qabto horumarinta saxaafadda iyo inaan u doodo xuquuqda iyo xorriyadda qowlka warbaahinta sidoo kale waxaynu ognahay in dhalinyaro fara badan ay ku soo biirayso saxaafadda isla markaana ay u baahan tahay in kor loo qaado heerkooda waxbarasho ee dhinaca tababarada saxaafadda iyo in kulliyadda hadda jirta ee jaamacadda Hargeysa ee qaybta saxaafadda sidii loo sii ballaarin lahaa aan ka shaqeyn doono haddii alla yiraahdo isla markaana waxaan u raadin doonaa waxbarasho iyo tababaro lagu kobciyo wariyaasha ugu dambeyntii waxaan wax ka qaban doonaa duruufaha ku gadaaman iyo inay helaan deegaan ay ku shaqeeyaan wariyaashu